waa hagaag daawadayaal markana aan eegna arrin ku saabsan dhinacaasi guddiga doorashooyinka iyadoo si weyn loogu dhagtaagaya wax kasta oo ka soo baxa guddiga doorashada ayaa wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi ku saabsan waxaan xiriir la sameeyay wariyaha telefishinka Hoon Kebel Maxamed Cabdi Sheekh Ilig oo goorahan bayisha ku hayay waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay wararka la xiriira doorashada iyo guddiga doorashooyinka Somaliland wixii arrintaasi ay ka yiraahdeen Maxamed haddii aad maqlayso ku soo dhawow waxaad nooga warantaa arrimihii ugu dambeeyay iyo halka ay wax marayaan macluumaadka aad hayso marka laga duulo cabdi shakuur waad mahadsantahay guddiga doorashooyinka qaranka Somaliland waxay maanta kulan la qaateen abaara 4 galabnimo ilaa 5 saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo iyagu cabasho soo jeediyay maalintii shalay warbaahinta la hadlay kuna sheegay in cabashadoodii hore la dhageysan waayay waxaana guddiga doorashooyinka si shirkooda jaraa'id ku sheegeen xalayba ay sheegeen in ay u furan tahay xisbi walbaaba inuu cabashadiisa soo gudbiso inkastoo ay ugu xoog badnayd marka xaqaa'iqa la sheegayo cabashada xisbiga mucaaradka ee wadani oo iyagu ay cabashada ugu badan jeediyeen kadibna taasi ay ka dhalateen markay cabashada jeediyeen kadib rabshado kala duwan oo dhacay xalayto oo ka dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco iyo Ceerigaabo balse haddana guddidu maanta waxay dhageysteen abaara 4 galabnimo ilaa 5 galabnimo musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadani iyo saraakiisha xisbigaas ay dhageysteen waxaana kala hadleen oo ay u gudbiyeen cabashadooda sida uu gudoomiyuhu shirkiisa jaraa'id ku sheegay musharaxuba oo uu sheegay in kulankaasi ay wada qaateen haddaba arrintaasi la xidhiidha kulanka ayaa markii uu soo idlaaday oo warbaahinta uu la hadlay musharaxu kadib haddana waxa abaaro salaadii cishaay kadib ilaa iyo abaara 9 habeenimo kulan iyaguna wada qaatay hadda isla kulankii mid lamid ah oo mar labaad kulmay musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Curo iyo guddiga doorashooyinka qaranka kulankaasina waxa uu daarnaawn oo uu sii daba socday kulankii galabnimadii dhacay ilaa haatan lama oga waxyaabaha muhiimka laga wada hadlay cabashooyinka laga wada hadlay iyo halka ay salka ku hayso cabashada rasmiga ah ee xisbiga wadani iyadoo xisbiga mucaaradka ee wadana uu sheegay inuu tabasho ka qabo doorashadii dhacday balse qodobada muhiimka ah ee sida tooska loo taabtay ilaa haatan labada dhinacba midna si toos ah uma taaban walow ay jirtay buugaagtii ay soo bandhigeen ama buuggii ay soo bandhigeen xisbiga mucaaradka ee wadani oo ay sheegeen in lagu codeeyay taasina guddiga doorashooyinka ay xalaysaad wada maqlayseen ay ku tilmaameen in ay tahay dambi qaran arrintaasina aanay dhicin balse ay dabagelayaan haddii ay guddida ku cadaatana ay dambiga yeelanayaan oo ay arrintaasi dhacday haddii ciddii sheegtay ay ku cadaatana ciddaasi dambiga ay madaxa ku qaadan doonto balse ilaa iyo haatan lagama warqabo halka ay ku biyo shuban doonto cabashada xisbiga wadani iyo saraakiisha guddiga doorashooyinka ee arrintaasi iyaguna dhageysanayay sidoo kalena ilaa haatan waxa soo xaroonayay sanaadiiqdii kala duwanaa ee ka soo xaroonayay gobolladii degmooyinka dalka oo dhan kuwaasi oo intooda badan ku soo ururay xarunta guud ee guddiga doorashooyinka qaranka isla markaasina komishaneerada oo ka kooban 7 xubnood ay intoodii badnayd ilaa 6 xubnood oo kamid ah sida uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranku inay ku soo xaroodeen magaalada Hargeysa aanay sii wadi doonaan dhageysiga iyo fariimaha ay u soo gudbinayaan asxaabta kala duwan ee iyagu arrintaasi dooda ka qaba gaar ahaan xisbiga mucaaradka wadani oo isagu cabashadaasi soo muujiyay isla markaasina u yimid guddiga doorashooyinka balse ilaa haatan lagama warqabo meesha ay ku biyo shuban doonto natiijada rasmiga ah waqtiga ay ku dhawaaqi doonaan guddiga doorashooyinka maadaama dadka Somaliland oo dhami ay ka warsugayaan waqtiga go'aanka ay qaadan doonaan ah in lagu dhawaaqo natiijadii ka soo baxday 13 bishii November ee ay dadka Somaliland 700 oo kun oo qof oo kamidi ay codkooda ku dhiibteen inay u kala codeeyaan saddexdii musharax ee u tirtamay jagada madaxtinimada sidaas darteed ilaa haatan waxa ka socda magaalada Hargeysa tirintii codadka ee ay tirinayeen xubnaha xisbiyada ka tirsan inkastoo xisbiga mucaaradka wadani uu isagu ka baxay tirinta codadka ee magaalada Hargeysa waxa sida laga warqabo Hargeysa ka dhacay ama magaalada Burco iyo Hargeysa iyo Ceerigaabo qalalaasa kooban oo ay 2 qof ku dhinteen isla markaasina khasaare kala geystay balse Somaliland marka laga hadlayo sida rasmiga Somaliland inta badan waxay ku caanamaashay hanaanka nabadgelyada iyo hanaanka isku tanaasulka iyo hanaanka isdhageysiga marka inta badan
fikirka ah in arintaasi ay dadku warwar ka qabaan waxaa laga yaabaa inay ku soo ururto hanaankii isku tanaasulka iyo wadaxaajoodka iyo is-ilaalinta iyo Somaliland inay ka wada dhaxayso dadka Somaliland ee aanay dan u ahayn dhibaatada iyo qalalaasu khibrad badan iyo faham badan iyo karti badan ay u leedahay dhibaatooyinka ay leeyihiin qalalaasaha iyo qaranka siyaasadeed taasi bedelkeedana ay Somaliland ay u aragto inaanay dhibaatadaasi waxba aanay ka soo gaari doonin